باق uu soo saaray Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar oo kamid ah salaadiinta waaweyn ee gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu si buuxda ugu taageeray wada hadalka ay ku dhameynayaan labada beelood ee Gabiley iyo Dilaasi oo khilaaf muddo soo jiitamayay uu taagnaa isla markaasina maalintii shalay ahayd ay ku dhawaaqeen in ay wixooda wada hadal ku dhameysanayeen isla markaasina beelahaas ay isku yimaadeen Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar waxa uu sheegay in wada hadalkaasi la sii dhaadhicin doono oo dadkii ay dhibaatadu dhaxmar gacanta la isku saari doono isla markaasina arintaasi ay si buuxda u soo dhaweynayaan waxaanu aad uga mahadnaqay dhamaanba dhinacyada ku lugta leh arintaasi oo ay kamid yihiin hogaanada labadaasi beelood oo siyaasiyiin iyo hogaamiye dhaqameed intaba leh iyo xukuumadda Soomaaliland intaba dadkii mahuraanka ahaa ee walaalihii ee isdhalay ee wada deganaa inay iyagu dantoodii ay ka raacaan oo gartaan oo iyagu soo fariistaan oo wixii u danaha oo nabadgelyada ku noolaasho inay isla qaataan ayaan aad ugu hambalyeynaya ugu mahadnaqaya waxaanan rajaynayaa maanta intan wax isla garatay waa odayadii dusha ka joogay arrinka waxaan jecelahay in dadkii colaadu ay dhaxmartay ee dhalinyarada ahaa ee xoogaga maartay lahaa dhalinyarada inay iyaguna nabadda mid lamida ee loogu dhawaaqay inay iyaguna hoos u dhaadhiciyaan oo ay ka heshiiyaan oo ay meel ku wada noolaadaan oo meel wax ku wada cunaan oo beelihi ay isdhex galaan baan ugu baaqayaa inta soo qaban qaabisay iyo inta ka soo arrinkaa ka talisay ee ugu horeysa xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo Sheekh Maxamed iyo garaad iyo inta kale ee labada arda ee hawsha soo qaban qaabisay xildhibaanadu ku jiraan waan ugu hambalyeynaya sidoo kale Suldaan Ibrahim Jaamac Samatar waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti oo isagu dhawaantan baarlamaanka dalkaasi dastuurka ay ogolaansho ka sameeyeen in markaasi mar saddexaad uu isku sharaxi karo waxaan uga mahadnaqay xubnaha baarlamaanka dalkaasi Djibouti in ay talaabo geesinimo ah ku dhaqaaqeen isla markaasina waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti in uu yahay haliyay markaasi isagu ummadiisa u horkacay barwaaqo iyo markaasi horumar inaan hambalyo iyadana aan soo jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo walaalkeen ah aniga ugu hambalyeynaya xulidda mar saddexaad uu xisbiga RBB uu u soo xulay doorashadii madaxtinimada bisha Abriil ee lagu soo foodalay waan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha iyo shacabka reer Djibouti iyo baarlamaankaba waan ugu hambalyeynayaa talaabada geesinimada leh ee ay qaateen ay ku soo sharaxeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu mar saddexaad xukunka dalka u qabto waxa kale oo niyadana ugu hambalyeynayaa baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti isna dhawaanta sida geesinimada leh ee ay muujiyeen ee ay wax ka bedelkii dastuurka dalka loogu bedelay in muddo saddexaad uu madaxweynuhu soo sharaxi karo taana waan ku hambalyeynayaa baarlamaanka Djibouti iyo shacabka reer Djibouti ee sida geesinimada leh iyaguna ku taageeray waan ugu hambalyeynayaa waxaan leenahay dad walaalaaynu nahay dad isdhalay baynu nahay xaggan iyo xagganba wada jooga waxaanu idiin soo jeedinaynaa madaxweynihiina Ismaaciil Cumar Geelle in doorashada sanadka in aad ugu dadaashin sidii uu ugu suurtagal lahayd inuu mar saddexaad ku soo noqdo hoggaanka dalka annaguna haddaan nahay madax dhaqameedyada Soomaaliland waan ugu hambalyeynaa hiil iyo hoo ayaanu la garab joognaa sidii ay ugu suurtagal lahayd jamhuuriyadda Djibouti in hoggaamiyahoodu uu mar saddexaad hoggaanka dalka ku soo noqdo waa abaabullo fara badan ayaanu gali doonaa waxaan leenahay shacabka reer Djibouti hambalyo ayaan idinku soo jeedinaynaa Xasan Ciise shabakada wararka Selen News Boorama